والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. halkiina saxaafadda aad baad mahadsantihiin waxaan u mahadnaqayaa oon inta soo dayn doonta inta la laalushaa kuma jirto inta haddii aan dhaafo waxa weeyaan waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrin inagu cusub oo inaan hore u arki jirin oo dalka ku cusub oo la yiraahdo qoladan RRU ayaan doonayay inaan wax ka idhaa kolka hore waxa isweydiin leh RRU-du waa maxay yaa xukuma yaa kharashka bixiya halkay inaga soo gashay waa wax ka baxsan dawladeenna oo ajnabi baa xukuma oo taasina ay wax u dhimayso madax banaanideennii ay muxuuha dhaawacayso kolka daakhiliga la weydiiyey wuxuu yidhi anugu ma ogi ciidanka booliiska muxuuha generaalka ciidanka booliiska kolka la weydiiyey wuxuu yidhi ma ogi kolka waxaa isweydiin leh RRU-da halkee laga amraa maxayse tahay yaase lacagta kharashka ka bixiya waa su'aal waa wax inagu cusub oo inaynu soo mari jirin dabeecadda iyo sabka ay u dhaqantaa waa hab aad u qallafsan waana astaamaha kacdoonku ka dhasho weeyaan nimay maalintii suuqa ka helayaan oo fadhiya makhaayadaha oo aayarun loo keeni karo saman oo la odhan karo berrita maxkamadda kaalay ayay intay dhaafaan ayaa waxay ayay saqda dhexe muxuuha gurigii u gelayaan oy jabsanayaan waxaa igu maqaalaa bahalweyn bay haystaanoo hamarahoo dhowr nin qabtaanoo albaabka lagu dhufto si gudaha ugu dhaca waa wax inagu cusub maxaa wakhtigaa ay ula eeganayaan maxay carruurtii iyo reerkii uga sasinayaan ilaa aroortiiba way qaban kari lahaa way u yeedhi kari lahaayeen hadduu diida yeedhmadana inta askari loo diro ku labaadba aanu la socon ayaa la geyn lahaa muxuuha maxkamadda la geyn lahaa maxaa kalifay markaa in reerkii loo dhaco oo saqda dhexe marka habeenkii dhoweed waxay ahayd labadii arooriyo marka ay bilaabeen labadii arooriye waxay risaasu socotay muddo guriga ciddii joogtay way istaafacaysa carruur dushood baa muxuuha dagaalku ku socday reer iska nabad ku seexday ayaa muxuuha ay dhibaatadaasi gaadhay carruurtii dhiiggii baa arkaysaa iyagaaba wax la yeelo maxaa qoriga dabiisa qaarkood lala dhacay waa carruur yaryaroo muxuuha sagaal jirku malaha ugu weynaa meelahaas da'daas kolkaa dabeed waxa weeyaan waxaan waa dhibaato ah maxay dawladdu ku falaysaa hadday ka tahay halla boqo madaafiicdiina siyaad barre iyo diyaaradihiisii iyo wixii oo dhan waa la soo dhaafo wax lagu baqa ma aha hadday iloobeen waanu u sheegaynaa waxaanu leenahay baqi ma jirto idinku ciirtaha iska daadinina waxa weeyaan wixii qayrkiinba eeday mahadin maysaan dadka ka daaya muxuu ahaa terrorismka boliis madaxa soo qarsada oo dhar soo xidha oo dabeetana muxuu ahaa reerkii iyo wixii galeelafa maynaan arki jirin boliiska iyo babligu waxay ahayn dad saaxiiba boliisku u adeego dadweynaha laakiin dadweyne wax laaya waxaa inoogu horeeya boliis wax laaya waxaa inoogu horreeyey maamulkana inoogu horreeyey waa arrin inagu cusub oo aan loo baahnayn oo muxuu ahaa aan dadku ka mutaysan xukuumadda islamtii waxaanu dagaalkii la bilaabay waxa uu ka dhacay waxay ahayd waa xorriyatul qowlkii oo laga tegey iyo guryo loo dhacayo yacnii xoolihii oo la dhacayo waxyaalahaasaa muxuuha laga tegey ayaa dagaalkii ka bilaabmay xifafaalihii inaynu dib ugu noqonnana ma aha sida maaha dowgu ma aha kolkaa meeshan miyir baa ka maqan wanaag baa ka maqan waxaad isweydiinaysaa RRU-dan yaa wata ee ka madaxma dawladeenna kolka wasiirkii daakhil ma ogi uu yidhaahdo kii ciidamada booliiska ka madaxdaha ma ogi yidhaahdo maxaa keenay haddaba hayana doqonnimo ah in nimankaa madaxda ah
ee dakhiliga iyo booliiska muxuu ahaa ciidanka u madaxda booliiska inay yiraahdaan waxaan dhacaya ma ogin iyagay ku tahay doqonnimo weyn in iska risaan gareeyaan bay ahayd ilaah baa risaqaaye in iskaga tagaan bay ahayd haddayna joojin karayn muxuu ahaa waxaan ka socda kolka waxaad moodaa inaan waxaan oo dhammi waxaan lagu cusub oo aan loo dulqaadan karin oo aan lagu dhaqmi karin ay yihiin waxaa kolkaa isweydiin leh xaggaynu u soconnaa waxaynu u soconnaa haddii sidan laga tanaasuli waayo waxaynu u soconnaa inaynu la noqonno la midowno muxuu ahaa Soomaaliya iswada haysata waxaynu ku faanaa nabadgelyada waynanu leenahay nabadgelyadii way fiican tahay waxa dadku ku farxaa madaxweynihii oo lugaynayaan soo maray farxad bay u tahay maaha askari inay daba yaacayso maaha inay muxuu la gelbinaya maaha waxa weeyaan dadku waa dad nabadgelyada jecel waa dad maxaa wanaagga jecel waa dad u baahan wanaagga kolkaa dabeeto taasi waa waxa weeyaan innaga danteennu waxay ku jirtaa in dadku sidaa uu nabadgelyada u doonayo in xukuumadduna ula garato ayay muxuuha ku fiican tahay laakiin ilaa imika lama garanayso xukuumadda maxaa qabta sharcigaa qabta sharcigii kolkay ku dhaqmi weydo ha la noo kordhiyo muddada sidii xasan u sheegay dee iyana wax meesha ku jira maaha waa intanay ka adkaan weyday dabeetana tii ha la noo sii siyaadiyana caqliga ma gasho kolkaa waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in xukuumaddu miyir keento oo kolkan ay ninkii ay suuqa uga yeedhi lahaayeen samanka loo dhiibi lahaa ee muxuu ahaa maxkamadda iman lahaa hadduu diidana askari qulihii u keeni lahaa kolka habeenkii intaasoo rasaasa loo rido magacii iyo sumcaddii muxuu ahaa dawladda iyo nabadgelyadaynu ku faanaynayba way dhaawacaysaa waxaa la soo dhayso tii nabadgelyo lagu faanayay waa maxay waxaan muxuu ahaa meesha ka socda waa foolxumo ay iyadu soo jiidanaysa weeye mid ilaahay baday ma aha sida runtaa kolkaa waxa weeyaan annagu madal ahaan waxaanu leenahay sidani si lagu dhaqmi karo ma aha dib ha loo noqdo ha laga fekero xisbiga kulmiye wax alla wixii uu ka cabanayay oo dhan hadday corruption tahay hadday muxuu ahaa sharci darro tahay wixii oo dhan isagaa ku dhaqmaya maanta kolkaa kulmiye waxaan u malaynayaa tabqudha ee u fiican waa madaxweynaha iyagoo iska risaan gareeyo ay dariiqa u banneeyaanoo dawladku meel gaadha ilaa wixii way wada burbureen sidii loo sheegayay baarlamaankii wakhtigiisa uu dhammaado sharci darru ku joogaa kolkay shaqadooda qabsan waayaan baa la yidhaahdaa kordhin laakiin kordhintu shuruud bay leedahay waa inay aafo weyni dhacdaa waa in balaaya dhacdaa waa in wax lagu qaban kari waayaa dhaca maaha intaan iska seexanoon ay murmaan inay maalinta dambe yidhaahdaan wayna soo guda gashee muxuu ahaa aynu kordhisanno kordhiskana dabeetana ay dan wada arkaan guurtidu doorashaba ma gasho waa taa ilaa intii ay soo bilaabeen maxaa kordhisun bay ku socdeen baarlamaankii way ka dhammaaday kordhis bay ku socdeen waayadanba xukuumaddiina wax yar baa u hadhay kolkaa dabeeto kordhis dambe oo la aqbalayaa ma jira ninkii shaqadiisa ka seexdow iskaga tag oo hawsha ma keri karayside iskaga bax laakiin kordhis dambe oo laysku maslaxo ma jiraayo nimaan sharci isagiiba ahayn inuu yidhaah waxbaan kordhinayaa oon ku dhexdhexaadinayaana waa waxaan la aqbali karayn kolkaa Saleemaan iyo Xaaji Cabdi iyo gruubkan surursanaya kulba muxuu ahaa meel la isugu tagayo kordhis lama aqbalayo muddadiisii way dhammaatay wakhtigiisii waa laga baxay waxa la arkay inaan waxba ka soo kordhayn oo kii shilaytay kordhiska diidana maanta uu ii kordhiya leeyahay ayaa ka soo baxay kolkaa waxa weeyaan ummaddan xisbi baad maamuli kari weydeen oo aad isku haysataan oo qayladiisu socotay muddadaa dheer dal lama maamuli kartaan kolkaa waxa weeyaan shaydaanka iska naara dariiqa banneeya dawladku iscasila dawladku meel gaadha ha la sameeyo oo sharciyada la hagaajisa muddo gaaban